kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed production kuna soo dhawaada barnaamijkeena qodobada caawa ku daawan doontaan Aduur Rabiidmo waxa kamid noqonaya faahfaahinadii ugu dambeeyay qaraxyo waaweyn oo maanta gilgilay caasimadda Muqdisho meedadka oo tusbax burtay noqday iyo dhaawacyada oo tira beelay caawa cisbitaalada Muqdisho oo ay dhaawacyo buux dhaafiyeen hooyooyinka oo ilmadoodu ay qubanayso iyo meedadka iyo dhaawacyada oo la kala garan lahayahay waxaan idin wadaagi doonaa qaar kamid ah mas'uuliyiin caan ah oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku dhintay kuna dhaawacmay qaraxyadii maanta ka dhacay meel aan sidaasi kaga fogeyn isgoyska Soobe ee lagu weeraray wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo bartilmaameedka loo ogaaday xaaladda Muqdisho caawa sidee iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay musiibadii dhacday haddaba sidee ay u dhacay weerarkaasi khasaaraha culus oo ka dhashay yaasa fududeeyay xogihii ugu dambeeyay ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeena wararkeena kaleetana waxaa kamid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo xiray shirkii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo qodobo waaweyn oo ka soo baxay ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena islamada waxaan idin wadaagi doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo muddo dheer kadib gudaha u galay deegaanka Masjid Cali Guduud goobo ay ka maamulayeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyo ciidamada oo saaray miinooyin loo dhigay wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanka Masjid Cali Guduud ayaana caawa warar dheeraad ah kaga helnaa qodobada ay kuwa kale ayaanu ku gorfeen doonaa barnaamijkeena Aduur Rabiidmo waana Sabti 29 bisha Oktoobar 2022 hasaatee daawadayaal intaan u gudagelin dhamaantiin waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan la gaadhaan sidoo kale la wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanidin faahfaahinta ayaana maqaadi doonaa waayahay waxaan u gudagali doonaa faahfaahinta inagoo ku bilaabi doono wararkii ugu dambeeyay qaraxyo waaweyn oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay oo marka ka dambeeya sii kordhaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxayo qaraxyada maanta ka dhacay agagaarka laamiyaraha Soobe ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa goobta qaraxu uu ka dhacay ayaa waxa ka agdhow wasaaradda waxbarashada Soomaaliya balse waxay xogtu sheegaysaa in wasaaradda aanan toos loo qarxinin qaraxyadan ayaa waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac xoog leh waxaana warbaahinta Soomaaliyeed ogaatay in dhimashada iyo dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan ilaa 20 meeyo warar ay heshay warbaahinta Soomaaliyeed ayaa sheegaya in qaraxa labaad uu ku dhintay taliyihii booliiska degmada Hodan Xuseen Cadceed kaasi oo dhawaan laga soo bedelay degmada Wardhigley waxaana sidoo kale ku dhintay qaraxan qaar ka tirsan ilaaladiisa sidoo kale dadka ilaa haatan la xaqiijiyay ee ku dhintay qaraxaasi waxaa kamid ah wariye Maxamed Ciise Koona oo shaqeynayay telefishinka M24 oo kamid ah saxafiyiinta ugu caansan magaalada Muqdisho sidoo kale wariyihii VOA Cabdulqaadir Ookay oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ee Muqdisho ayaa isaguna ku dhaawacmay qaraxani waxaa jira khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac leh kuwaasi oo dad shacab gaari kuwa oo ku sugnaa agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay marka la eego baaxadda qaraxan ka dhacay agagaarka isgoyska Soobe iyo khasaaraha uu sababay kuma uusan koobnayn bartilmaameedka kaliya wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare oo kaliya waxaana la garan karaa burburka gaaray goobaha ganacsiga iyo waliba dhismayaasha ka agdhow wasaaradda oo aad u ballaaran isgoyska Soobe oo ah goob aad u saxmad badan iyo waliba isku socodka magaalada halboolana u ah ayaa waxay tahay meel mar waliba u nugul dhibaatooyinka qaraxyadan ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho sidaas oo tahay qaraxii maanta ka dhacay aagaasi looma nisbeen karo kaliya in bartilmaameedku ahaa wasaaradda waxbarashada qaraxii maanta ka dhacay waliba khasaaraha uu sababay waxa la dhihi karaa waa qaraxii Soobe labo sida dad badan oo goobjoog u ahaa qaraxii maanta ay qabaan marka la fiiriyo muuqaalada hordhaca ah ee burburka iyo khasaaraha la arki karo ayaa muujinayo inta lixaad ah oo weerarkaasi uu leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha caafimaadka oo looga fadhiyo tirakoobka rasmiga ah ee inay soo koobaan khasaaraha qaraxii maanta ka dhacay iyo waliba dadkii ku dhintay goobaha ganacsi ee ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay oo ku dukaamaysanayay ayaa qaarkood dhismayaasha ku hoos jira wali sida ila wargalaha ay sheegeen balse dawladda federaalka ee Soomaaliya faahfaahinta ay ka bixisay qaraxani waxa ka hadlay afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya shir jaraa'id oo uu galabta ku qabtay afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ee magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa dawladdu waxay faahfaahin ka bixisay qaraxii maanta ka dhacay agagaarka wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska Soobe afayeenku waxa uu sheegay in dad rayid u badan ay dhibaato ka soo gaartay ase yeeshee ilaa iyo hadda waxa socdo sida uu yiri tirakoobka khasaaraha dhimashada iyo kuwa dhaawacyada ee ka dhashay qaraxaasi afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro wariye ku dhintay goobta qaraxu ka dhacay oo Maxamed Ciise Koona la yiraahdo Amiin Ambalaas ayaa sheegtay
in gawaaridoodu ay soo qaadeen dhaawacyo tirabeel ah. Cisbitaalada Muqdisho ayaa waxaa la gaarsiiyay dad aad u badan kuwaas oo dhaawacyo ah inkastoo aanan tiro rasmi ah laga helin ilaa xilligani. Labada qarax ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa lala beegsaday wasaaradda waxbarashada oo ah goob markaasi ku taalo agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan laamiraha Soobe. Si kastaba ha noqotee caawa magaalada Muqdisho waa magaalo si weyn kaga duwan habeenadii hore iyadoo dadkuna qaarkood lagu arkayo cisbitaalada hooyooyinka iyaga oo ilmadoodu qubanayso raadinayo dhaawacyada ama dhimashada ehelkooda. Cisbitaalada waaweyn ayaa qaarkood buux dhaafiyeen dhaawacyada. Xaaladda guud ee magaalada Muqdisho caawana ma aha mid caga buuran ku taagan marka loo eego jawiga magaalada sida uu yahay. Magaaladu waxay martigelinaysaa maalmo kale oo murugo ah iyada oo xasuusanayso dhacdadii murugada lahayd ee ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho sanadkii 2017 halkaas oo dadkii ugu badnaa oo Soomaaliyeed ay waxyeelay ku soo gaartay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiinteeda kala duwan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ayaa fariintooda ku soo koobay tacsi oo kaliya lamana shaacin khasaaraha rasmiga iyo inta uu leeyahay. Dowladda ayaa sheegtay in ay dib ka shaacin doonto khasaaraha weeraradii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Isku soo wada duub goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa maanta waxa laga arkay muuqaalo naxdin ah iyo waliba kuwa wadna qabad ku ah bulshada aragtidooda ama guud ahaan tabinteedaba waxaana la arkayay dad dhaawacyo ah oo naftooda la baxsanayo iyo kuwa iyaga oo dhaawacyo halis qaba laga soo saarayo goobaha dhismaha burburka lixaad kale uu gaaray hoostiisa. Si lamid ah waxa la arkayay muuqaalo la baahiyay kuwaas oo ah kuwa argagax leh isla markaasina ka dhashay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weeraradan ayaa mas'uuliyadooda waxaa dusha u ritay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. geesta kaleetana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeyay ka furnaa magaalada Muqdisho. Shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxtooyada Soomaaliya uga socday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maanta la soo gabagabeeyay sida wararkaanu ku helayno. Shirkan oo 2 maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ugu dambeyntii maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabad lagu soo gabagabeynayo oo ay ka qayb galeen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaasha ciidamada madaxda maamul goboleedyada oo goobjoog ka ahaa dhammaan shirkani. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad halkaasi ka jeediyay ayaa si qoto dheer kaga hadlay shirkan iyo waliba waxa uu daarnaa iyadoo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay qariyeen waxyaabihii ay ka heshiiyeen hase yeeshee khudbado madasha laga jeediyay ayaa lagaga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Mas'uuliyiin kala duwan ayaa khudbado jeediyay intooda ugu badan madaxweynaha waxa uu sheegay in haatan wixii ka dambeeyo shabaab aanan shabaab lagu yeeri doonin hase haatee taasi bedelkeeda khawaarij loogu yeeri doono. Kadib kulankii maanta hadal uu ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madax kale ayaa hadal ka jeediyay oo uu kamid yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo xubno kale oo uu kamid yahay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa looga fadhiyaa in ay faahfaahin buuxda ka bixiyaan waxyaabihii shirka maanta lagaga hadlay. Inkastoo shirka maanta faahfaahintiisa lagu soo koobay mid lagaga hadlay dagaalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab hase yeeshee golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa hor yaalo in ay maanta qalinka ku duugayeen heshiiskii shirkadda Coastline Exploration ee kheyraadka Soomaaliya loogu xaraashiyay. ugu dambeyntii haddii aanu eegno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada Gorgor iyo Danab ayaa gudaha u galay gelinkii dambe ee maanta deegaanka Masjid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in maanta ay si buuxda ugu wareegeen deegaanka Masjid Cali Guduud oo 2 toddobaad ee ugu dambeysay ay isku hayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada commandoska Danab iyo kuwa Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya ay gudaha u galeen deegaankaasi kadib markii xalay ay ka baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay markii hore madaafiic ay la dhiceen deegaanka gaar ahaan aaga ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab taasi oo keentay inay ka cararaan duqeymaha iyo sidoo kale dagaalka foolka ah ee uga imaanayo ciidamada Danab iyo Gorgor. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ee ku sugan Masjid Cali Guduud ayaa sheegay inay wadaan howlgallo ballaaran waxaana ay shaaciyeen in ay shabaab ay qaraxyo ay uga aaseen halka laga saaray. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka warbixiso howlgalka dib ugu wareegeen Masjid Cali Guduud.
waxaana saacadaha soo socdo shir jaraa'id qaban doono taliyaha ciidanka dhulka Generaal Maxamed Taliil Biixi oo jiida hore ee dagaalka ku sugan. Majid Cali Gaduud ayaa muddo sanada waxaa gacanta ku hayay dagaalyahanada argagixisada ee ururka Al-Shabaab waxaana haatan gacanta dib ugu soo galay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ciidamadan howlgalka wada ayaa ku sii jeedo Aadan Yabaal oo ku yaalo saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe. Talaabadan ayaa waxay qayb ka noqon doontaa kacdoon ay horboodayso dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina dadka deegaanka meelo badan ay kaga qabsadeen ururka Al-Shabaab. Gudaha daawadayaasha ayaan ku soo beeraya barnaamijyada kala socoteen warbaahinta Somali Weyn Production tan iyo kulanti dambana wadi warsan.